wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle ayaa deeq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid, timir, caleen iyo biyo gaarsiin reer guuraa ee saameysay abaarta ka jirta dalka, kuwaas oo xoolahoodii ku dhammaadeen abaaraha. reer guuraagan deeqda la gaarsiiyey ayaa tiradoodu gaaraysay 78 qoys ayna u soo barakaceen markii ay xoolihii ka dhammaadeen, naftana la soo gaareen tuulada Uurjire ee ka tirsan degmada Rako, halkaas oo ay ka dhisteen cooshado aqal ah. ayaa reer guuraagan ay xoolihii ay ku tiirsanaayeen ay intii badneed ku baxeen abaarta, halka inta yar ee u soo hartayna ay aad u liidato. ayaa wasiirku deeqdii uu u waday ku guddoonsiiyey tuulada Uurjire ee hoos tagta degmada Rako Raaxo ee gobolka Karkaar. wasiir Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiintii kale ee safarka ku wehelisay ayaa sidoo kale indha-indhayn ku sameeyey deegaanada kale ee abaartu maamulka degmada Rako iyo shacabkeeda ayaa deeq soo gaarsiiyey reer guuraagan ay abaartu saameysay. ugu horeyn guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Rako Raaxo iyo odayaasha deegaanka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda abaarta, iyagoona uga mahad celiyey deeqda uu waday wasiir Cabdiraxmaan Sheekh. sidii noo sheegayaan 2 sano roob ma qaban ereyadan abaartaas waxay sababtay in xoolihii dhamaadaan, qaybtoodna ay aad u liitaan oo tabar daran yihiin. dadkan waa soo xoroodeen hadda 70 qoys weysay la noo sheegay. annagu ka degmo ahaan wixii awoodeeda ahaa gurmad baan u soo sameynay, waa u nimi. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa gurmadka dowladda madaxweynaha iyo wasiirkii oo nala jooga oo iyaguna ah qoladii horeysay oo soo gaarta. wixii saaki loo keenay hadda gacanta loo geliyay waa haystaan. waxay cunaan ay waayeen ayaa waxa dhacday biyo la'aantii iyo waxa isku kaalmaysay xoolihii oo cudur, gaajo, harraad intaba way isku kulmeen. waxaan maanta ina soo gaartay deeq ka socota dowladda Puntland oo iyo degmada Rako oo ay noo keeneen odayaasheeda iyo ganacsato. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa xagga dawladda oo maanta deeqdana keeneen. waxaan loo qaybinay 78 qoys oo maanta ah dadkii ka soo xoolahoodii ay dhaafeen oo meeshan maanta aad ka aragtaan iyagoo muuqda idin muuqda. muday tahay dawladda Puntland wasiirka Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo dawladda Puntland gurmadkeeda. marka saddexaad waxaan u mahad celinaynaa degmada Rako iyo xildhibaanada iyo odayaasha walaalahaya oo noo soo gaarsiiyay raashinkan deeqda oo maanta loo qaybinayo 70 qof. waanu haysanaa, waana loo keenay. ilaahay baa mahad leh, idinkana waa inii mahad celinaynaa. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ayaa isna dhankiisa ka hadlay xusana in abaartu ka jirto dalka intiisa badan. waxa ka jira gobolka Karkaar abaaro baan oo saameeyay dad iyo dunyada. abaarahaas oo isugu jira biyo la'aan, cunno la'aan, hooyo ku jira xoolaha. abaarahaas oo saameyn weyn ku yeeshay tuulooyinka hoostaga degmada Rako. hadda waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Uurjire. wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa ka waramay deeqdan ay wadeen. waxaa maalmihii u dhameysay culayska abaarta soo tiraysay oo soo jirtay ay keentay qayladhaan ka imaanaysay deegaankan ee gobolka Karkaar ee gaar ahaanna degmadan tuuladan aan maanta joognay ee hoos tagta ee degmada Rako. in dadkii xoolihii ka dhammaadeen ayna soo xiroodeen, sidaa darteedna wax emergency ah oo baahida jirtay culayskii dadkii ay u yimaadeenna oo walba aad u jilicsanaa laftigooda oo waxba haysan. tuulada garan kartaan iyada laftigooda sida ay ka muuqata abaartii walba waxay ku tiirsanayd xoolaha, in iyada laftigeedii ay dadkii culays ku soo dulbiiriyeen. taas ayaa waxay keentay inaan si emergency oo degdega ku nimaadno. maanta waxaan wadnay raashinka qayb waxa soo amray madaxweynaha dowladda Puntland oo si emergency in lagu gaarsiiyo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan. dowladda iyo shacabka reer Puntland inay xanuunkan in la qabaan inaan dareensiino aan halkan ku nimid. marka labaad waxaan baaq u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid allaale ciddii kaleeto oo ma garanaysa ay arrintan saacidaad ka geysan karta in ilaahay dartiis arrintan uga qayb qaataan. waqti adag iyo xaqiiqdii aad iyo aad u adag oo dhab u adag ayaa lagu jiraa. waxaa naloo sheegay 78 qoys halkan inay joogaan oo isugu jira
maxamuud yuusuf caamir TV-ga caalamiga ah Somali News magaalada